galab wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garoowa idaacadeena galabnimo oo kuwa degdeg u badnaan doona inaad ka daawataan janaalkeena youtube-ka sirta wararka waa galabnimo arbacaha saaxiibayaal taariikhduna waxay ku beegantahay 23 maajo sanadka 2022 idaacadeennana qodobada ugu waaweyn ee galabnimo aad ku daawan doontaan waxaa qaybka rasaas xoog leh qaraxyo ayaa ka dhacay gudaha airportka magaalada Muqdisho al-shabaab oo ka dhex dagaalamaya airportka Muqdisho iyo xerada Xalane oo halka sida weyn loo ilaaliyo kooxda al-shabaab oo war ka soo saartay weerarka ay ku qaadan xerada Xalane iyo gudaha airportka macluumaadkii ugu dambeeyay ayaa idin soo gudbin doonaa sidoo kale duulimaadyada dalka oo dhan ayaa la joojiyay kadib markii al-shabaab ay gudaha u galeen airportka Muqdisho dhammaan macluumaadyo ku saabsan kooxda al-shabaab oo qudheeda ka hadashay weerarkan booliisku waxay sheegeen inay toogasho ku dileen raggii weerarka ku soo qaaday gudaha airportka wararkii ugu dambeeyay xaaladda Muqdisho oo al-shabaab maanta ay qabsadeen qaybo kamid ah garoonka diyaaradaha iyo xerada Xalane iyo ajaanib badan oo xerada Xalane degan oo la sheegay si degdeg ah dalka iskaga carareen dhammaan warbixino ku saabsan wixii airportka Muqdisho ka dhacay iyo xogihii ugu dambeeyay ee la diiwaan geliyay ayaa idin soo gudbin doonaa doorasho adag ayaa maanta ka socota magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyadoo Cabdulaahi Goodax Barre wasiirkii hore waxbarashada wareega koowaad oo ku haray kursigiisa hob 63 oo 9 qof ay u tartamayeen natiijadii ugu dambeysay doorashadaas oo weli ka soconaysa Beledweyne iyo shakhsiga la dhashay lafta garan oo hadda u badan tahay inuu ku soo bixi doono kursigaasi warbixin ku saabsan ayaa qaybka xog culus oo ku saabsan diyaarinta xildhibaanada taageersan farmaajo oo laga bilaabay Villa Soomaaliya hadda bilowday siday u diyaarin lahayd nambarka ama tirada rasmiga ah ee xildhibaanada ee farmaajo taageersan uu haysto sidoo kale ra'iisul wasaare Robles wuxuu ku fashilmay inuu soo risaaq ku sameeyo magacaabista taliyaha hay'adda NISA ee loo magacaabay Cabdiraxmaan Dheere oo isna ra'iisul wasaaruhu ku fashilmay Axmed Madoobe wuxuu diyaariyay gulgoobti lagu qaban lahaa 16 kursi ee Garbaharey waa halkee Axmed Madoobe diyaariyay dhammaan warbixinadan ayaan ku soo gudbin doonaa qaybka noqo saaxiibada ku xidhay channelkeena subscribe inoo dhig gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena gaarka ee halkan aan ku baahino saaxiibayaal qodobadani kuwa kale aan ku faahfaahin doonaa 10 daqiiqo ee soo aadan u diyaar garoowa aan ku bilaabaysa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kooxda al-shabaab ayaa mar qura gudaha u gashay airportka magaalada Muqdisho iyadoo xabado iyo daryan hub culus la maqlayo sidoo kale duulimaadyada ayaa la joojiyay dhammaan warbixinadii ku saabsan xaaladda airportka ay kooxda al-shabaab oo qudhidu ayna ka hadashay sida ay ugu suurto gashay ciidankooda inay u gudbaan gudaha airportka iyadoo waliba xusid mudan tahay in inta airportka la gaarin ay ka horeeyaan 12 checkpoint oo lagu hubiyo gaadiidka ee dadka u socda gudaha airportka ee xerada Xalane laakiin la yaab ayay noqotay markii la arkay xubno kamid ah mintidiinta al-shabaab oo ka dagaalamaya gudaha airportka ama gudaha garoonka diyaaradaha aan soo koobo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee qasaaraha ilaa hadda la ogaaday faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa ama aan ka helay macluumaadyo ku saabsan weerar culus oo xoog ka tirsan kooxda al-shabaab maanta barqadii ay ku qaadeen xerada Xalane oo ku dhex taala gudaha airportka ama gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde sidoo kalena ay halkaas saldhigi ku leeyihiin safaaradaha ajaanibta iyo ciidanka AMISOM rag hubeysan ayaa la sheegay in gudaha garoonka ay weerar ku qaadeen waxayna ka soo wareen dhanka Marina Gate la yiraahdo iyadoo qarax lala beegsaday control yaalay albaabka hore ee xerada Xalane waana halka laga soo galo garoonka diyaaradaha waana halkaas ay ciidanka AMISOM ay ku hubiyeen gaadiidka soo galaya gudaha xerada Xalane iyo airportka iska horimaad dhaxmaray kooxda hubeysan iyo waliba ciidamada ammaanka ayaa ka socday xerada Xalane gaar ahaan xarunta loo yaqaan eeyaha lagu tababaro oo ku dhex taalo isla airportka gudihiisa waxaana la sheegay in halkaas ay ku sugeen askar AMISOM ah waxaana lagu baaraa gaadiidka waxyaabaha qarxa iska horimaadka dhaxmaray kooxda weerarka soo qaaday iyo ciidamada ammaanka ayaa ka soconaya xerada halka loo yaqaan xerada lagu tababaro eeyaha ka shaqeeya gudaha airportka waana eeyaha kuwa waxbaara alaabaha laga soo dejiyo iyo waliba kuwa laga dhoofinayo si ay ogaadaan hadii walxa qarxa ku jira xafiis gaar ah oo leeyihiin oo loo yaqaan SKA oo gudaha airportka ku dhex taala iyo kooxda al-shabaab ay qabsadeen halkaas ay ka dagaalameen dhanka kale kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan waxayna shaaciyeen in toogasho
ay ku dileen dhowr ka mid ah askarta ciidanka AMISOM kuwa sida gaarka u tababaranaya Soomaaliya ciidamaduna ay gudaha xarunta ay ka dagaalamayaan ilaa hadda ma jirto wax hadal oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee ku saabsan xogaha la helayo xaalada gudaha airportka ayaa kacsan waxay wararku sheegayeen kooxda al-shabaab ay u suurta gashay in gudaha airportku ay ka dagaalamaan halkaas oo meesha xabadu ay ka dhaceyso waxay si toos ah gacanta ugu dhigeen xarunta keedka eeyaha ee waxbaara oo gudaha airportka ah sidoo kale waxa ay hub la dhaceen keedkii shidaalka gudaha airportka iyadoo la arkayay meelo badan oo qiic holac ah ka soconaya oo gubanaya taasoo keentay in khasaaruhu sii kordho xaalada garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa u muuqata mid ka sii dareysa dagaalyahanno ka tirsan ciidanka AMISOM iyo kuwa booliiska ee sida gaarka u tababaran Haramcad ayaa la sheegay in isla markiiba ay bilaabeen howlgal la doonayo in lagu soo afjaro kooxda weerarka soo qaaday ilaa hadda khasaaraha la ogaaday waxaa qayb ka taliye ku-xigeenka booliiska ama garoonka diyaaradaha aadan caddi in dhaawac culus oo kasoo gaaray kaasoo loo qaaday cisbitaalka waxaa sidoo kale jira toogasho lagu dilay askar ka mid ah ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo kooxda weerarka soo qaaday ay toogteen dhinaca kale duulimaadyada dalka oo dhan ayaa la joojiyay kadib markii al-shabaab ay gudaha u galeen airportka dhammaanba duulimaadyada gudaha iyo dibadda ee garoonka diyaaradaha aadan caddi ayaa la hakiyay kadib markii dab lay hubeysan oo al-shabaab gudaha airportka ay ka dhex dagaalameen khasaare kala duwan ayaa laga soo sheegaya inuu ka dhasho weerarka iyadoo haatan han ama kaalin shidaal oo ku dhex taala gudaha airportka ay gubanayso oo qiici holac ah laga dhex arkayo gudaha airportka madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa la sheegay in xukuumaddiisa ay ku guuldareyseen la dagaalanka kooxda al-shabaab oo ay fursad siiyeen in caasimadu ay ka dagaalamaan faahfaahinno dheeraad ayaana laga helayaa dagaalka oo aaga xalane iyo airportka ka soconaya waxayna wararku sheegeen kooxda weerarka soo qaaday ay weli ka dagaalamayaan aaga Marina Gate oo ah meesha albaabka hore laga soo galo xerada xalane waxaana dab qabsaday kaalimo shidaal oo halkaasi ku yaalay kooxda weerarka fulisay ayaa ilaa hadda waxa la xaqiijiyay in ay hayeen kuwa isku soo ekeysiyay askarta dowladda ayagoo soo xirtay dariiska ciidamada dowladda waxayna iska dhigeen ciidamo kuwa dowladda ah oo gudaha airportka u socda markii albaabka hore xerada xalane ee ilaalada AMISOM ay u diideen askarta inay galaan oo laga hor istaagay ayuu mid ka mid ah kooxdii dariiska dowladda ku labisnaa isqarxiyay kadib waxa uu suurta gashay isqarxinta in dablida kale hubeysan ay gudaha u galaan dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay waxaana booliisku ay sheegeen inay toogteen dabladii weerarka soo qaaday weerarkan la soo afjaray goordhow taliska booliiska Soomaaliya ayaa faahfaahin hordhaca ka bixiyay weerarka cuslaa ee barqadii maanta lagu qaaday xerada xalane ee Muqdisho kaasoo khasaaro dhimashay dhaawaca afayeenka booliiska oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in weerarka ay soo qaadeen laba koox oo kamid ah kooxda al-shabaab oo midna u suurta gashay in gudaha airportka ay galaan Cabdi Fitaax aadan xasan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ciidamada ammaanka ay hor istaageen weerarkan oo aysan al-shabaab u suurtagelin bartilmaameedkooda oo ah in ay gudaha airportka u sii dhaadhacaan sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in weli ay socoto baaritaan ku saabsan sida ugu fududaatay al-shabaab in halkan ay soo galaan iyo khasaaraha ilaa hadda la ogaaday xaaladda weli way kacsan tahay waxaana rasaas weli laga maqlayaa gudaha xerada xalane oo ah halkay degayn ciidanka AMISOM ilaa hadda si dhaba looma hubo in weerarka la soo afjaray in kale waxay xogto aan helin dhanka amniga ay sheegeen in weli xabado ay ka dhacayaan gudaha xerada xalane kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan waxayna dhankooda ay sheegeen in haatan toogasho ay ku dileen xubno badan oo kamid ah kooxda xubno badan oo kamid ah ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda weerarkan ayaa dhaliya hadalhayn iyo shaki xoog leh oo ku saabsan dib u soo laabashada kooxda al-shabaab in la soo abaabulo weerarkan ay tahay arrimo siyaasadeed oo amniga lagu wiiqayo ay dadka qaarkood ay qabaan xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya qoraal uu ku daabacay bagiisa Facebook ayaa sheegay in weerarkan uu saameeyay duulimaadyada gudaha iyo dibadda oo dhan oo istaagay waxa uu yiri 5 sano ka hor halkii afisyooni lagu doortay farmaajo iyo maanta al-shabaab ka dhex dagaalamayaan oo xabad ay ka socota duulimaadyada gudaha iyo dibadda ayaa mar qoraal istaajiyay ayuu yiri xildhibaan Mahad Salaad tani oo ka dhigan in kooxda farmaajo ay ku guuldareysteen xaqiijinta amniga sidoo kale wuxuu weerar afka ku qaaday maamulka farmaajo isagoo sheegay in ay ayaan darro ay tahay in hoolkii lagu doortay farmaajo 5 sano ka hor maanta xabad laga maqlayo
dhowr iyo 10 sano al-shabaab halkan maysan ku hamin inay ka dhex dagaalamaan laakiin maamulka farmaajo ayaa hadda u suurto gashay inay ka dhex dagaalamaan halkan ayuu yiri Maha Salaad qoraalkiisa markaan soo koobno wuxuu u muuqdaa mid uu ku weerarayay kooxda madaxweyne farmaajo haddaba saaxiibayaal wixii soo kordhaa oo la xiriira doorashada aan dhahay dagaalkii ka dhacay gudaha airportka xirada Xalane iyo macluumaadkii ugu dambeeyay dagaalkaas wax walba oo ka soo kordha iyo hadii dawladdu ay xogo ka soo bandhigto saaxiibayaal waxa naga xasuusinaa idaacadaheena kale inaan kugu soo gudbin doono macluumaad walba oo ka soo kordha xaaladda kooxda al-shabaab oo airportka Muqdisho ay ka dagaalamayso aan u gudbo wararkeena kala gordhow waxaan eegi doonaa saaxiibayaal Hiiraan laakiin Hiiraan intaan eegin xog culus oo helay channelkeena sirta wararka waxaan ku ogaanay in Villa Soomaaliya ay diyaarinayso xildhibaanada taageersanaa farmaajo kuwaas oo hadda lagu wado habkii loo diyaari lahaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhamaantoodba la doortay 29 xildhibaan oo kaliya ayaana dhiman inta kale waa ay dooriyeen kooxda farmaajo iyo hadda sameynaya ololahooda ku saabsan isku dubridka iyo diyaarinta xildhibaanada ayaga u soo baxay xildhibaanada taageersan madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu soo waramayaa in habeen walba oo ay lagu xaadirinayo ay tagayeen Villa Soomaaliya sidaan ogaanay xildhibaanadan oo u badan kuwa dhanka nabad sugidda ka soo galay iyo qaar kale oo tiro badan oo ayna ka soo galay dhinacyo kala duwan ayaa si weyn loo hadalhayaa waxaan hadda lagu diyaarinayaa Villa Soomaaliya qaabkii ay u shaqeyn lahaayeen iyo qaabkii dib u doorashada farmaajo uga shaqeyn lahaayeen iyo soo xirigelinta xildhibaanada kale ee banaanka taagan ee ka yimaada maamul goboleedyada kale farmaajo ayaa niyad xumo ka muujinaya 16 kursi ee Garbaharey asagoo soo qaaday asagoo waxba aan ka soo qaadi doonin 16 kursi maadaama ay u ogtahay in Axmed Madoobe ku guuleysay 16 kursi sida muuqata in kuraasas uu la tagay ceel waaqab balse Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gacanta ku hayda kuna tashanaya xildhibaanada koonfur galbeed 85% inta badan kuwaas oo beelaha shanaad iyo waliba qaybo kamid ah reer waqooyiga Galmudug iyo Hirshabelle codadkooda ku tashanayo si kastaba waxa uu hadda farmaajo ku tashan doonin oo aan wax raja ah ka lahayn xildhibaanada laga soo doortay Puntland iyo Jubbaland oo dhamaantood baloobo inaysan wax codad sii doonin farmaajo kuwaas oo codadkooda heli doona Saciid Cabdullaahi Dani Villa Soomaaliya toos u guda gashay ololaha dib u doorashada farmaajo waxaana muuqata in kooxdu ugu lacagta badan ama ugu dhaqaalaha badan inay noqon doonaan doorashada 2022 si kastaba waxa dhici karta marka laga soo tago hoolka doorashada oo wax walba isbedeli karaan laakiin intaan la gaarin waxa muuqata in kooxda madaxweyne farmaajo ay dhaqaale xoog leh ku bixinayaan doorashada Febraayo 2017 waxa dhacay hoolka doorasho markii la tagay isbedel weyn ayaa ku dhacay Xasan Sheekh oo waa laga hiiliyay hadda si lamid ayaa laga yaabaa in kooxda farmaajo ay ku dhacaan iyadoo 10 laga bartay doorashooyinkii hore dhinaca kalena aan soo koobo warbixinadeena Ra'iisul Wasaare Roble ayaa u muuqda inuu ku fashilmay inuu hor istaago magacaabista Cabdiraxmaan Dheere oo loo magacaabi lahaa agaasimaha hay'adda NISA waxaa la filayaa in toddobaadkan dhexdiisa lagu dhawaaqo agaasimaha cusub ee hay'adda NISA oo bedeli doona Yaasiin Farey kaasoo dhawaan loo dhaarin doono xilkan maadaama Yaasiin Farey uu ahaa taliye ku meel gaar ah laakiin hadda uu noqday xildhibaan haddii xilkan loo dhaariyana waxay ka dhignaan doontaa si automatic xilka hay'adda NISA u baneyn doono agaasimaha cusub ee NISA ayaa madaxweynaha farmaajo uu la rabaa Fahad Yaasiin ka sokow inuu u soo xusho gacanyarihii Fahad Yaasiin oo Cabdiraxmaan Dheere kaasoo la sheegay inuu gacanyaraha midig ee Fahad Yaasiin Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku gacan seeray xubnaha loo wado hadda in loo magacaabo waxaana ogaanaysa in Cabdiraxmaan Dheere uu diiday Ra'iisul Wasaare Roble in hay'adda NISA loo magacaabo waxaana la sheegay in Roble uu xuskaday heshiiskii asagii farmaajo gaar in la tixgeliyo oo la keeno qof shakhsi ahaan u qalma una gadmi kara hay'addaas NISA laakiin waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaare Roble in marna uu aqbali doonin in Cabdiraxmaan Dheere hay'adda NISA loo dhiibo si kastaba sidaan ogaanay channelkeena sirta wararka Villa Soomaaliya ayaa rumaysan inaysan jirin awood uu Ra'iisul Wasaare Roble kaga hor istaagi karo farmaajo magacaabista Cabdiraxmaan Dheere marka laga reebo inuu muujiyo kaliya diidmo wax dhaafisan uu sameey karin iyo qoraalo baraha bulshada ah oo lagu daabici karo oo ah inuu ka soo horjeedo hase yeeshee farmaajo u magacaabo saacadaha soo socday maanta Cabdiraxmaan Dheere waxay ka dhignaan doontaa tijaabo kale oo lagu guuleystay Ra'iisul Wasaare Roble oo markii horeba looga adkaaday in meesha agaasinka hay'adda NISA ay noqoto mid farmaajo gacanta ku hayso maadaama Ra'iisul Wasaare Roble oo Bashir Goobo uu rabay hay'adda NISA xubno isugu jira xildhibaano siyaasiyiin iyo dalaaliin siyaasadeed ayaa saacadihii ugu dambeeyay ka miri dhalin
saadaalinayay qorshaha ah in ra-iisul wasaare Roble uu diido uuna kasoo horjeesto magacaabista Cabdiraxmaan Dheere halka Fahad Farmaajo ay u arkaan Cabdiraxmaan Dheere shakhsiga kaliya ah hay'adaas ay u dhiibi karaan. Arrintan ayaa la filayay in khilaaf cusub ay ka dhex abuuri doonto madaxda, balse lama filayo in madaxweynaha wax kale ka duwan uu sameeyo. Waxaase suurtagal ah in ra-iisul wasaare Roble asna golaha wasiirada uu shariyo una qaado tallaabooyin kale oo dheeraad ah tan oo keeni karta xitaa in xaalad kale aan la filayn ay soo baxdo haddii Farmaajo uu ku dhawaaqo arrintan. waagaag saaxiibayaal doorasho adag ayaa maanta ka dhacday magaalada Beledweyne ee Cabdullaahi Goodax Barre ayaana u muuqda inuu ku haray wareegii koowaad ee kursiga Hoob 63 uu ka gudbi waayay. doorashada kursiga Hoob 63 ayaa wali ka socota magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan kaas oo ku tartamay ilaa 9 musharax oo ku jira wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya. tartankan ayaa mid miisaan culus oo waxa la soo gabagabeeyay wareegii koowaad iyadoo wareegii labaad hadda loo gudbiyo oo 2 musharax oo kaliya isku soo hareen. Goodax Barre waxa uu helay 10 cod halka musharaxa kale oo asna tartanka iskaga haray iyo mid kale oo asna helay 6 cod oo kaliya. labada musharax ee gudubta ayaa kala Xasan Daahir Xaaji oo helay 32 cod ninka la dhashay ee Cabdicasiis Lafta Gareed iyo Cabdirasaaq Macalin Axmed oo asna helay 20 cod kuwaas oo hadda lool culus u dhaxmariyo inay u gudbeen wareegga labaad oo midkood ayana la filayay in baarlamaanka 11aad uu ku soo biiro. Daahir ayaa sidoo kale ah ninka la dhashay madaxweynaha Koonfur Galbeed oo dhanka isku hooya waxa uu yahay musharaxa kaliya ee lacagta ugu badan ku bixinaya kursigan sida uu ogaaday channelka Nasirta Wararka. asaga ayaana la sheegay inuu bixiyo lacag gaaraysa $1,500 Mareykanka waa 1,500,000 ayuu bixiyay oo lacagta Mareykanka kursigan dartiisa. doorashadan ayaa ka duwan marka loo eego doorashooyinka hore golaha shacabka waxaana tartankan uu yahay mid furan oo dhinacyadu dhaqaalahooda ay adeegsanayaan. dhanka kale ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay, ciidamo dheeraad ayaa la dhigay. Beledweyne ayaa hadda u muuqatay in tartan furan ka soconayo. Cabdullaahi Goodax Barre ayaa hoolka iskaga soo baxay oo xanaaqay markii natiijada uusan ku qancin sidan xogta ku helay. Goodax Barre ayaa la sheegay in saacadaha soo socda oo warbaahinta la hadli doona asagoo sheegi doona in laga hiiliyay. haddaba saaxiibayaal wixii soo kordha wareegga labaad doorashada ayaa soconaysa. haddii macluumaad ay ka soo kordhaan doorashada wareegga labaad iyo wax walba oo ka soo kordha arrintan waa idin soo gudbin doona idaacadeena caawa. sidoo kale waxaan naga xasuusinaa in warbixinadii ugu dambeeyay airportka ama garoonka diyaaradaha ee xerada Xalaanay halkaas oo al-shabaab maanta ay ka dagaalameen. wixii macluumaad ay khasaaraha ay ka soo kordha waxay ka yiraahdeen wakiilada beesha caalamka, dawladdu iyo booliisku waxay ka yiraahdeen dhammaan macluumaad ku saabsan ayaan caawa warkiin aad ku daawan doontaan. sidoo kale waxaan baaris ku sameyn doonaa sida ay al-shabaab ay ugu suurto gashay in gudaha airportka Xalaanay iyo waliba sidoo kale gudaha garoonka diyaaradaha ee xerada Xalaanay ay galaan oo ay ka dhex dagaalamaan muddo ka badan 2 saacadood. warbixinadaas oo dhameystiran oo baaris dheer aan ku sameyn doono iyo dabagallo xoog leh ayaa warkiina caawa aad ku daawan doontaan.